أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أتاجيا والله إسكتشريا والله إسويريا وأوجدان أمين مسوي سودا وأوجدان إلا إسويريا لكن إلا أي حالة تلفون كي أدبر لوجو شقيناي nimankaasi marka wax laga sheego wadankay ku jiraan marka wax laga sheego xataa technology-ga way kala dirirayaan anigu ma jecli ashabaab runta idin sheegayay ma jecli qofkaas Siham Abdi something Borshe waxaas la dhahaa dad yow badan baa jira oo ay ku shaqaysanayaan oo teleefankayga ku soo galaya weerar ku soo galaya jira maxaa la dhahaa Siham Abdi Borshe want to join you are bored I don't want to join garaysid leave waxaa idin sheegaya Soomaaliyeed ilmahan anagu aan wadankan la soo galnay wixii aan rabno hadii laga waayo maxaa la barayaa in la caayo in la xumeeyo qofkii muxuu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa qof damqaduu noqonayaa maxaa hadhowna la tusayaa dawladii Mareykanka waxa loo tusayaa inay enemigoodi tahay ama Yurub xaasidkoodi loo tusayaa ilmuhu dambi markuu galo oo uu khaldamo waa ilmo yar dad baa maskaxda ka xadaya dadku markay maskaxda ka xadaan dad baa baalaha iga rifaay inay iga gooyaan bayna rabaan laakiin ogaada ilmuhu markay ay soo kacaan markay soo kacaan recording baa samaystay waa duubaya dadka soo galay oo dhan waan duubaya marka hadhowna waan la xisaabtamaya insha Allah biidnillahi alkareem markay ilmuhu yar yihiin oo ay soo kacaan baa waxa la barayaa ma taqaanaayeeto waxa la barayaa balwad baa la barayaa ilmaha marka balwada la baro ilmaha dambi buu galaya malaa'ig maahan Soomaaliya dambiga lagu gali jiray America lagu gali jiray maxaa dhacday ilmihii marka dambi la galiyo oo ilmihii la xiro baa ilmihii waxa loo yeelayaa number baa loo yeelayaa ama ilmihii waa la caayaya waa systemyada loogu kaxaysto ilmaha ashabaabka iyo ice-kiya loogu kaxeeyo weey runta idin sheego Soomaaliyeed intiina badanna waxba ma ogidin wadanka waa iska joogtaan welfare sida loo cuno baa taqaanaan intiina badanna you don't care because caruurta anaga korsanay waana lagu furay waana lagu nacay waana looga tagay marka maxaa meesha yaala he doesn't care ninkii dhalay ma kala jeclaba waxa jira iyo muxuu wax seerji gareeyaa wuxuu ku maqan yahay ururi wax ururi buu ku maqan yahay ama naagu ururinaya ama shilin buu urursanaya laakiin inaga dumarka ah oo ilmaha la inooga tagay inaga la ina rabaa inaan indhaheena furano caruurtan anaga dhalnay caruurtan anaga ku dhimanay caruurtan inaga ku daalnay yaa hoosteena kala baxaya ilmaheena hoosteena rag baa kala baxaya kale ninkii shalay kaaga tagay waxa kaaga sii xanuun badan kan kaaga guranaya kaaga xanuun badan cunugaagi dambi baa la gelinaya rag baa qaadanaya balwad baa la baraya wiilka guriga waa ka ordaya gabadhii guriga waa ka ordaysa reerkii waa wareersan yahay habartii respect looma hayo baalaha laga rifaaya cunugii baa lagu diraya cunugii hadhow muxuu galaya cunugu haduu wixii ka naxaayay lagu diro waxaan ka naxayna uu xirada u galo cunugii balwad baa la baray jeel baa la geeyay haye what else jeel markii la geeyay baa hadana dhinac kale laga soo galaya albaab kala loo furanaya maxaa la leeyahay dawladan gaaladan way ku nicibtihiin saanay ku yihiin kana yihiin waa in aad ma taqaanaayeeto la dirirtaan waa in aad saas yeeshaan baa la baraya yaa baraya kii shala daraaga baray ama mid kale oo shaar kale u gashaday baa baraya waxa lagu khamaaraya waayo waa cunugaad survivorka la soo martay waa cunugii lagugu nacay oo lagugu furay waa cunugii lagugu caayi jiray waa cunugii caloosha kuu bugto waa cunugaaga jeelka ku jira cunugaagi baa waxa la rabaa marka wuxuu noqonayaa wixii buu rumaysanaya cunug yar oo kasta oo la xiray u fiirso dawladahan waa nicib yihiin dadkan waa nicib yihiin gaaladan waa nicib tahay waxaan haysana ma leh bar cunug walba waraysta saasuu ka oranaya guri walba meel walba joogan dhalinyarada aan u dariiqada taagan baa la sheekaystaa kulli waa moore ka wada sameeyeen baa jira dadkan waa nicib yihiin dadkan saan bay nagu yihiin dadkan waa dadkii shalay ka keenay qaxootiga waa dadkii shalay wadankan ku keenay kama dhaadhicin kartid laakiin wuxuu laga dhaadhiciyay oo nin ku soo shubay in uu wadankan laga nicib yahay baa nin ku soo shuba ninku ku shubayo waa ka warkiisa u yeelayo waa ninka markaas waxa uu raba siinaya maxay tahay
waa ninka daraaga siinaya waa ninka gabadha yar oo reerku dhalo gurigooda ka soo carartay dhahaya warfuul waa ninka wax u dirsanaya waa ninka shilimo siinaya kaasa ilmahaaga wata adigii marka waxaad leedahay wiilkii baa igu caasi garoobay gabadhii baa igu caasiyowday saana igu waxaysantay baad leedahay gabadhaadi nin baa gadaya saasuu lacag u ruxaya SI nin qaataa 20,000 saa u ruxaya SI nin qaataa wuxuu leeyahay oo lacagtaan gabdhaan ka gaday proof baan haynaa wakaas wax walba waa soo saarnay social media mana ka dhiidhidaan saw raggaan damiirha ka sugunina raggaan waa raggii shalay caruurta inooga tagay waa nimankii shalay caruurta inooga tagay nin gurigiisa ka tagayna cunugiisa wax lagu sameeyo iyo wax kale midna wax kama oga laakiin yaan la hadlaya anigu message-kan yaan u wadaa anigu ma taqaanaa dumarkaan u wadaa dumarka tii caqli lahaan u wadaa maana wiifta ordaysa oo nin ka daba ordaysa oo kacsi militaara kolonta feber u hayanaa you are not my type stay here let me tell you something dumarka caqliga lahaan la hadlaya oo ama wax haddii loo sheego wax fahmaya sometimes hadalku marka laguu sheego buu ku galaa oo aad wax ku qaadataa so cunugaagii balwada la baray jeel baa la geeyey xataa kuma soo booqanayo xataa ugu tagi maayo xataa maxaa kugu jirtaa ma dhahayo because he doesn't care because badda inuu geliyo badina waa geliyey yaa dambigu kusoo noqonaya adigii hooyada ahaa kii dhalay wuxuu ku leeyahay naya ninka xunkaa dambiga galay cunugaas xunka iga keeni gurigu ku leeyahay midna banaanku u taagan yahay wuu xiranayaa kow cunugaagi marka la xiro maxaa kuu soo haray adigaa rabaa in baalaha lagaa rifo hadhow markuu soo baxaa dawladii weji kale looga dhigaya dawladii shalay aad kula korisay ee ninba kaaga fiicnayd ee aabba kaaga fiicnayd ee kii ku qabay kaaga fiicnayd ee kii kula dhashay kaaga fiicnayd ee dariska kaaga fiicnayd ee cid walba kaaga fiicnayd runta markaa aan isu sheegno dawladahan aanu nimid way nooga fiican yihiin cid walba way nooga fiican yihiin wayna koriyeen wayna la caawiyeen qofka maalintaad baahan tahay ku caawiyana inaad ilowdid maahan so wiilkaagii hadhow baa la dhahayaa kuwaan waa gaalo kuwaan waa saan kuwaan waa keer kuwaan waa cadowgaagii markaasaa cunug walbaba uurku ka riman yahay inuu cadow la joogo amxaarada anaga maxay oran jirta mataqaanaa canjeeradaa soo qabanaysay xabashida oran jirta canjeerada baa soo qabanaysay xabashida oran jirta qofkii wadanka inta la siiyo wadanka nabad ku jooga oo wadanka dambi inta ka gala ka carara iska ma aysan jirinin canjeeradaa soo qabanaysa anagana maxayna qabanaya full stamka ina soo qabanaya kaarka caafimaadka ina soo qabanaya kaashka la ina siiya ina soo qabanaya guryaha la ina siiya ina soo qabanaysa nabadaa ku soo qabanaysa middle of the night aroos aad u taagan tahay ku haysad baa ku soo qabanaysa barwaaqada iyo fadhiga iyo jiifka iyo guryaha aad jirtay nabadgelyada baa ku soo qabanaysa taas ma beentayba taas waa true mana diidi kartaan okay cunugaagi marka cadow baa laga dhiga cunugaagi marka uu ku khasban yahay inuu raaco wixii loogu sheekeeyo so dadkii koriyey baa waxaa looga dhigay inuu cadow yahay adigii horaa lagaaga gooyey waagi balwada la baray baa adiga horta lagu xoora adigu waagaas qashinka raacday habartii kusoo dhimatay ee kusoo rafaaday horta qashinka waagaasay raacda what else yaa la rabaa marka in maanta lagu diro marka adiga lagugu diray baa dawladda lagu diraya dadkaas xagee bay joogaan kuwa lacagta lahay ku jiraan magaalada jooga waxay ku jiraan kuwa suuqa ordaaya waxay ku jiraan kuwa nolosha easyga haysta kuwa lahaayo kuwa meesha taagan kuwa Soomaalida ah kuwa ganacsatada leh kuwa masaajida ku jira qaarkood kuwa businessyada leh mid walba ku jira dayuusku meel walba galaa so waa munaafiquna meel walba ku jira so cunugaagi marka muxuu easy u noqonaya inuu cadow ku noqdo wadamadan la joognay don't cry marka cunugaaga la kaxaysto oo u dhinto don't cry haddaadan hadeer daba qabanin aniga wiilkayga xalay waxaa la soo saaray in la xiray xabsiga yaa loogu talagalay nabiyadii ilaahay ma la xiri jiray mise lama xiri jirinin marka cabdixakiin calooley uu wiilkayga soo saarayo in la xiray marka wiilkayga uu soo saarayo cabdixakiin calooley in la xiray siyaadna ku sibood garaynayo oo lacag ku siinayo oo wiilkayga high schoolka kaga baxay Minnesota oo ku dhashay Fairview Hospital oo Somaliland u dhashay saw markuu soo saaro social media gabadhayda single mother ta markuu soo saaro selmiga oo shaqaysata oo county-ga u shaqaysa oo social media vulnerable inuu ka dhigo mar raba yes or no ma uu raba yes or no idinka idin sheegaya ma uu rabaa inuu inta vulnerable ka dhigo siyaad gurigiisa laga soo abaabulo cabdixakiin oo freedom to speech u haysta America inuu hadlo inuu caruurta vulnerable inta ka dhigo ashabaab hadhow ay aadaan u diyaarinayo America la ciloobaan is that right it is that right Somali
I need help aniga ma ujeedaa dumarka meeshaan ku jiro aniga I need help helbiga aan raba muxuu yahay waxaan rabaa xoogiina waxaan rabaa aqligiina waxaan rabaa dhaqaalihiina waxaan rabaa in aan dadka xun oo caruuraheena jeelka geynaya sidaan uga hortagi lahayn aniga waan socdaa meelna waan gaarayaa no matter what oo hintaana oo hinlaan baa ka dambaysa so cabdixakiin weligiis cunug ma dhalinin kow aniga meesha ay gubanaysa laakiin ma gubanayso hooyo ilmo dhashay oo ilmaheedii social media inta la soo saaray la leeyahay uu nin leeyahay uu rabo inuu cunugaygu farnable intuu ka dhigo uu dadka tuso in la xiray inuu tuso saw inuu inta banaanka u soo bixiyo uu tuso saw uu dhaho hadhowna warudgaaladan waa ku nicibtahay kaalayo shabaab aad inuu dhaho taasuu rabaa laakiin ma shaqaynayso laakiin maxaan rabnaa inaan iska celino ilmaheena yaa daraaga bara gabdhaheena yaa gada gabdhaheena yaa fuula gabdhaheena yaa moorarka ka dila gabdhaheena yaa ku ciyaara ragga Soomaaliyeed way wax ku ciyaara inaan iska celino baan diyaar u nahay ninkii fiican anaguna la safan yahay ma haysana anagu hadda adigu shaar dayuuska la gashanaysid aday ku taala siyaad wuxuu igu dhaartay in uu igu kharash gareeyo cabdixakiinna ay caayo ilmahaygana gacanta lagu dhigo inuu ilmahaygana gacanta ku dhigo reer waxaa jira dariskayga waa jaamac siyaad wiilkayga yarka ah ayagaa loo soo diraa caruurtooda si gacantayda hadeer balwad la baraa la rabaa oo laga saaro waa cunuga yarka 18 sano hadda gaaray saw baraayada kugu soo socota hadaadan ka hadlinin hadda waxba ma qaban kartid markay kugu dhacdo wax ma qaban kartid laakiin Soomaali people waxa ogaataan in aan u taaganahay cabdixakiin ashabaab uu shaqeeya wuxuu gado wa gabdhuhu gado iyo waxa uu sameeyo iyo technology-ga uu gado iyo daraagada maalin walba uu ku faanayo jaadku waa daraag dealer weeye uu ku faanayo oo gadayo oo cunayo oo uu samaynayo fisiqa uu ku samaynayo wuxuu ku baabi'inayaa dhaqaalaha uu ka keeno ashabaab u diraa xawaalada al-amal baana laga diraa bam oo hadana bam baa baratina baa la iskarfaya so what so anigu wiilkaygan Soomaaliya oo dhan ka jecelahay hooyo walbana aniga ila mid noqotaa rabaa naagta wiilkeeda inta la kaxeeyay laga saarayay airport oo America soo qabatay oo hadana America caayaysa is that right wiilka cayrta lagu koriyay ee istaalka Mareykan ku dhashay ee inta wax la barayay marka maskaxda inta laga qabsaday markaas inta gurigayga soo dhex fariistay waxay leedahay America way khaldan yihiin waa gaalo cunugaygu muslim buu ahaa ma ashabaab baa muslim la marka ashabaab isa muslim wiilka wadanka muu ka baxay ha ma muxuu uga baxay ayuu ka cararay oo waa uga cararay America xaga u cararaa America hadaan ka cararo maxaan shalay ugu soo cararay bis ma shalay ugu soo cararay maanta biski ma yaalo maanta ma luma habeen loo sheegaya Europe bis baa ku haystaan ma ulmi wali sidii weeye wadanku waa deganaa markaa nimid haddana waa degan yahay waxa shalayna waalna maantana ku dhex waashay waa inaga yaana waalay inaga iswaalnay yaa beenta sheega inaga sheegna anaga beenta isu sheegna dawladina beenta u sheegna so that's right no waa in la fiiriya truuga la fiiriya waa in baruurta qurunsan la soo saara Soomaali I don't know meena ka keenteen qarin iga dheh aad bad u jeceshiin la qariyo qarin iyo qabyaalad ba waa jeceshiin qarin wax la qariyo iyo qabyaalad ba waa jeceshiin uurka haday leedahay inay qarsay rabtaa hadii ninku furo inay qarsay rabtaa hadduu ashabaab yahay inay qarsay rabtaa hadduu ays aada inay qarsay rabtaa hadduu guriga ku nool inay qarsay rabtaa hadduu been sheegaysa inay qarsay rabtaa is that right no wixii qaldan waa inaan iska qabanno waa ku khasbana inaan iska qabanno wixii qaldan inaan iska qabanno ma ku khasbanahay yes or no waa ku khasbanahay caruurta annagaa dhalnay inagaa ku rafaadnay nimaan caruurba dhalinin ama kuwiisi dubanaya siyaad kuwii dhalay buu dubanaya ma kuwaygu u naxaya gabdhihiisa yarka ah curdanka ah buu cunaya oo cabdixakiin wuxuu leeyahay social media hagee oo la saaraya ma kuwaygu marka u naxaya no cirka soo ridaya dhulka soo ridaya wadankan sharci baa ka jira waana kula aadaya waxa tahayna social media dadka waa tusaya waxa tahayna sharcigana waa kula qaadanaya waxaan kaaga baqayna malahan suud baa baratay ana hadda ku suud garaynaya
soo waxaan kugu suud garaynaya gabdhahaagii yaryarka ahaa ee curdanka ahaa ee dhaylada ahaa ee beautifulka ah ee meeshaan ku dhashay baad ku cunaysaa wiilkayga beautifulka ah ee Minnesota ku dhashay miyaa asxaan u samaynaysaa no gurigaaga saa lacagta loo bafinayo yaa loo wadaa amal baa la baaraya waxa la waxaan sheegayana waa run maxaa idin soo haray Naciimo Ducaale wiilkeedii shalay muxuu ku dhasha xageeba ku dhasha Denmark buu shalay ku dhasha shalay markuu dhashay adduunka ilaahay keenay Denmark buu ku dhashay way la soo oroday maana wiifta iga dheh Mareykan bay keentay waa dhiibtay waa bedeshay magacii bay bedeshay intay keentay saw wax la qarinayo malaha Soomaaliyay waxba idinka wada buuxa laakiin ballan ilaahay waxaan ku maray in ay wada qarxiyo oo idin wada sheego saw wiilkii ku dhashay Denmark ee Mareykan la keenay ajaanib iga dheh ay guursatay awlaad haysato wiilkii ka dhaqaaqayay ilmaha ee kaligii Soomaali ka ahaa waa tuurtay waxa lagu tababaraa Qaahira lagu tababaraa bam hadana bam baa barateen baalaha la iska rifaaya saw in la sheegayo mashaki baa ku jira yes why loo fogeeyay why ayadu ula guuri weyday yaa ka responsibility how many caruura taqaanaan Egypt inta la geeyay oo iskuul u dhigtaa la yiri hadhowna la yiri wadankiiba waa laga kaxeeyay how many baa maqasheen Allah oo dhintay oo ogtihiin oo ayna soo sheegin xataa ilmihiina waxay ku dhinteen waxaa soo dhawaa qarisaan how many caruura ogaay Minneapolis ka maqan oo naagti guriga dhex fadhida wal farcunaysa cunugiina ay kaxaysay kulligiin saas idin soo wada qofaya bam hadana bam baalaheed ka wada rifaya so beelowyaatihiin na'alatullah ala alkaadibin ba ilaahi yiri kadaabiin ba wadatiin kulligiin oo dhan Somali people so aniga leeyma galinin so babygayga beautiful ka aha ilmahayga survivor ka aan la soo noqday so social media ma saarna so Cabdixakiin Caloolay iyo Siyaad mu oranin wax walba dheh shafka umu garaacinin ana idin tusi doona inuusan ku shaqaysan karin taas inuusan inta wiilashayda iyo gabdhahaygaba saaro social media inuusan Siyaad shilinkiis shaqaynaynin anigoo caafimaad u baahano isbitaal aadayana turjumaad iga dheh la igu turjumaayo oo shilinka turjumaanimadeeda laga keeno caruurta iyo naagaha laga keeno haddana ashabaab loo diro haddana kuwayga la rabo ashabaab in loogu diro haddana la rabo aniga in stress la igu rido haddana saa lacagtii torneedadeedii ay saa igu wareegayso Cabdixakiin laaluush loo siiyo qaar uu banaanka la soo taagan yahay ma shaqaynayso Siyaad bay ka shidan tahay idin no هذا ما همبرسي أرق ما بين بابرتنا بالها لسكرفاياي Soomaali bay ka shidantaha America waa wareerseen haddaan America aysan wareerka deynin oo aysan ii ducaynin oo aysan oran milyan ilaahay baa noo soo diray MMS haddayna oranin waligin hay wareysanina soo wax walba sheegaya soo maxay ka qaadi kartaa soo wax walba sheegaya soo tuug baa tahay soo daalin baa tahay soo beenlow baa tahay soo gabdhaha fuusha soo wiilasha fuusha soo caruurta gadaan soo dumarka wareersan soo qudusreed ku guurstaan soo waxbaad qarisaan soo ashabaab baad tihiin soo shaydaamaad tihiin soo xawaaridiina ashadaadiin ah oo ashabaab ah oo idinkoo dhan baa qasan oo culmadiina nagama keen qabato oo caamadiina nagama keen qabato oo dumar haddaan nahay waa ba'nay oo haddaan dumarnay waa hoognay oo haddaan dumarnay inkaar baa nagu dhacday oo haddaan dumarnay caruurteedii waa baabi'iseen oo haddaan dumarnay waa na dulanteen oo haddaan dumarnay baalaha naga rifteen oo ilmahayagii baa naga qaadeen oo social media daaqalkii keenteen oo haddana bam oo been baa barteen baalaha ka rifaya so what maxaa been la isugu sheegaya beerkayga waxaan ka jeclahay malahan ilmahaygaan adduunka ugu jeclahay wallahi billahi tallahi ilmaha Soomaaliyeed soo saari waayay oo naag walba ay baqayso hadli weyday baan la aamusnaa maahane waxaan ogahay haddaan saa u fataqo soo aniga shuunayga lama soo galinin soo gabadhaydii beautiful ka ahayd soo meesha xala ma saarnayn soo wiilashaydii beautiful ka meesha ma saarnayn idinkayda ka shidan tahay Siyaad bay ka shidan tahay Cabdixakiin bay ka shidan tahay Naciimo Ducaale ka shidan tahay Puntlander bay ka shidan tahay hooyadeeda jalaabiibta qabta ashabaab bay u shaqaysaa soo lacagta Cabdixakiin soo aruuriyo ayada aruurisa honno hadal ma walaasheed ninka qaba laba naagood buu qaba waa illegal Mareykan in laba naagood ku qabo bam oo hadana bam horta qoyskaanan cunaya so labada ay dacweynaysay ee meesha ila taagnayd maxay ahaayeen labadoodana ninba way wada shaqaystaan naag walbana dawladda biisha runta marka la isu sheego oo intaan horta hadda igu taagan aan runtooda soo qofo soo qofku asaga shidad la saga dhiga asaga la mashquuliya aniga gurigaanan deganahay mid kale idin sheegaya social media iga dheh Facebook-da lacag baad ka qaadataan
كو يوتيوب يدنا لعق باك سميسان لابو انتينا يوتيوب ودني انتينا فيديو بالك يرن واريكور غريسين وانا لو دراديا شلمada aad ka qaadatid dawladda guriyada aad ku degantahay friiga waliga ma ka report gareyseen waliga ma ka sheegteen waliga ma bixiseen lacagta extra aad heshaan ma bixiseen haddaana idinka daba shaqaynin dheel baad u qabtaan dhuusa haddaynaan xaar haddaynaan dhuusa moodino idinkoo qoyana idinka dareeraysa ayna arag weligan hay waraysanina aniga ms baa la dhaha allah subxaana watacaala baa ila jira addoon xun oo tuug ah oo daalin ah oo beenlow ahna wallahi anaa ka raynaya si kastaan oga raynayaba kow laakiin waxaan kuu sheegayaa siyaad shilmadiisa kaarka caafimaadka ka yimid asagoo al-shabaab ah inuusan kaarka caafimaadka maraykanka lacag usoo diraynin no taas ma jirayso al-shabaab iga dheh siyaad inuusan ku shaqaynaynin isuudgarayn lahaydaa iyo iliqi lahaydaaba anigu waxaan kula aadayaa waaweynka waddanka seefkiisa ilaaliya sow qofka sidiisaba horta lacag samayn karaa waddanka muxuu ku yahay waddanka seef ma ku joogi karaa waddanka nabad ma ku joogi karaa anoo al-shabaab ah waddanka nabad kuma joogi karo sow waa in lay sheegaa sow waa in layska soo qabtaa wixii khaldan sow ciin buu daaqay sow caruurtiisibuu shalay banaanka u ogolaaday inuu nin xun uu ku dhaho ilmahayga social mediaha saar sow waa cuqubada soo baxaysa sow gabadhii yarta ahaydoo maskiinta ahaydoo reesiyad maxay cabdulla xasan ahayd buu liqay oo baalkeeyey sow midii ka horreysuu gabadhay ka dhashay uu ku dayacay sow annagiibu hadda noo soo dhigtay kuwayga survivorka ayoon weligoodba nin korinin oo anigu aan kaligay ku dhintay siirkaygu dawa inuu arbitra ka noqdo oo 15 nin oo aniga i guursaday uu tigidha u jaro buu damaca laakiin no ma shaqaynayso laakiin waxaa idiin sheegayaa ilmahayga anigu aan la soo maray survivorka america aan ku kariyey oo aan bus driver iyo lemow driver iyo company inaan ka shaqeeyo janitoriya inaan ka shaqeeyo housekeeping inaan ka shaqeeyo inaan dukaan furto inaan dhexda u xirtay inaan guriga ka shaqeeyo inaan wax walba ka shaqeeyo anigu aan dhexda u xirtay inuusan cabdixakiino qaata social security lacagta dadka laga gooyay qaata yaa inuusan ku safaadaynin taasaa idiin sheega inaysan soconayn baa idiin sheega mana soconayso ilmahayga anaa dhalay wiilkayga uu social media soo saaray wiilkaygu rag ma leh ragna u helin maayo laakiin mms baa dhashay hono hadal maaha hembererse arag maaha naftaydaan ka jeclahay ilmahayga iyo naftaydan ilmahaygaan jeclahay runtaan kuu sheegayaay xayaadka inay ku noolaadaanna waan doonayaa laakiin kii balwada baray waa him kanuu rabaa hadda inuu balwada baro guriga jaamac siyaadka oo dariskayga oo naagta aamino cali dhaha ay leedahay wiilasheeda baa la rabaa in wiilasheeda lagu sad abgareeyo iyo naagta samsama wiilkeeda baa hadda la rabaa in wiilkayga gacanta laga bixiyo oo intay gacanta ku dhigaan ay baraan hadeer daraaga ay baraan baa la rabaa bam oo haddana bam been baa barateena naag walba ay wiilkaaga waxa meesha loo wato iyo qofka kaxaysta iyo qofka wada iyo meesha loo wado haddaadan shalay ogeyn maanta fur indhahaaga haddaad ogeyda dadka baqaysayna soomaali ma xishootee way baqdaa ee wax walba banaanka dibadda iga dheh iisoo gudbiya reerkaad uga shakidaan inay ilmahaaga meel geeyaan lama teliyo aniga iisoo sheega taalmi aniga iisoo sheega anaa baalaha ka rifaaya because cunugaad kusoo dhimatay ood ku daashay ood ku baaba'day baa waxaa la rabaa dheel in loo qaato waad arkayseen anigoo hadda life ku jira in la ijaray waa arkayseen maxaa keenaya xoolihii al-shabaab baa laygu jarayaa soo xoolihii al-shabaab baa yaalla ninka soomaaliya xamar qarax baa ka dhacaa la yiri allaha u naxariistee dad baa ku dhintay gabadhii wasiirada dumarka ahayd oo la oran jiray reer kanadada ahayd allaha wiilkeedii baa ku dhintaa la yiri iyo maamo kale oo ayada ka hooseysay baa ku dhimataa la yiri qaraxaas xamar ka dhacay anigu saaka xalayba ana halkaanu xal ana iiga qarxa sow al-shabaabka jooga xamar iyo al-shabaabka jooga maraykan iyo al-shabaabka yurub jooga iyo al-shabaabka australia jooga isku sibay u shaqeeyaan isku caadifadna weeye isku sibayna dadka u dulmaan isku waqti bayna kacaan waqtigoodii weeye marka kii xala qaraxii ka dhacay halkaanu xal ana iiga qarxayo caruurtaydu xala ku qarxa sow ayagay ka shidan taha marka waxa weeye wadankan baalaha la iska rifaaya runtaana la isu sheegayaa qof walba asagoo nadiifa wadankaa ku noolaado haddii kale soo ma aha adeer jeelka raggaa loogu talagalay jeelka adaa lagu geynaya soo wuxuu yidhi wiilkaaga jeel haddii la geeyey in lasoo fuulay ma ahan siyaadba jeel baa la geeyay soo lama soo fuulin haddii wiilkayga jeel inta la geeya lagu soo fuulay ma waan siyaad inta la geeyay jeelka lagu soo fuulinin
وكي مقعيسة $10,000 أو صاري متقانا إلا كلير قرايه أو لعقته كبحيه maxaa qarsoon maxaa looga dhigayaa dadka taabuul looga dhigayaa in dadna lagu tunto dadna la kalin gareeyo asagoo aabayuusay gabadhu qabaa la xira soo wuxuu ka saaray systemka dhan lacag hadaad bixisid waa laga kalin gareynaya magacayga laga saaro yiri $10,000 buu ku bixiyay oo magaciisa meeshii looga saaro la galiyay website-yadii la galiyay oo dhan iyo meel lagu guray oo dhan lacag iga dheh lacagta ashabaab lagu taariyo xawaalada al-amal laga diro idinkoo dhan bay idinka shidan tahay ballaha idinka rifaaya waa inoo galab waa inoo hamayn waa inoo fiid ina idin muslimiyan ballan ku qaaday soo muslim tiidin tuug yahay ma ashabaab baa muslina wixii ashabaab u shaqeeya muslim ma ahan ashabaabna muslim ma ahan ISIS muslim ma ahan dadka waxa dilaa muslim ma ahan muslimku dadka inuu dilo ma ahan waad ceebaysteen muslimkii culumaduna waxay culumay yihiin lama arko say way ka hadli lahaayeen say runta sheegi lahaayeen nin walbaba hunguri kansaraalka idinka wada gal waxaad culumatihiin male nin walbaba shilmo urursanaya been baa wada sheegaysaane beerka alla idinku dhufayay runta sheega oo dadka runta inta noo sheegtaan dalkayagii baan ku noqon lahaynon cimilo fiican ku noolaan lahaynon cad iyo cadin cuni lahaynon caana qurux badan cabi lahaynon habbi ku noolaan lahaynon qorax arki lahayn kulligaya vitamin D la-aan baan haysa wuxuu cadku hadda ila xirmayaa vitamin D iyo qorax midna ma arko ciilkii 1991kii aan soo arkay kan maanta i haysta baa iiga daran qaxii iyo qaraxii iyo dhibaatadii Soomaaliya aan ka soo marnay kan maantana haystaa nooga daran wadan xarahan joognaa haddana la haystayaal baan nahay haddana slavery baanu nahay xaq ma ahan taasi cunugaad ku dhalashay oo ku dhimatay oo qaadatay maalintaad calfan lahayd buu halkan alkulista inta usoo fariisto buu baalaha ka rifaya oo daraagada baraya oo daraagada ka gadaya is that right markuu inta khalad galo la xirana wuxuu kaaga dhigayaa mataqaanaayo sida toojarkii buu rabaa inuu kugu haysto oo cunugaagana ugu haysto kuwa yararkaayo suuqan balwada ku yeeshayba xirxiraaya wixii wax baray oo dhan ayagaan hadda ku shaqaysanayna ayagaana noo soo wada xirxiraaya kulligooda dhan so information badan bay hayaan xidigtii Soomaali u dhalata aha geesiyad baa aha beautiful baa aha waxaan la dhalin yaraaday maanta social media soo galay duuduub baan lahaa aawa duuduubkii hadda xagee buu aaday duuduubkii xagee buu aaday inta aan ku lahaa muxuu ahaa wuxuu ahaa ciil wuxuu ahaa calool xumo wuxuu ahaa fakar wuxuu ahaa walwal wuxuu ahaa wax iga buuxan qarinayay dhowrka boqol oo video oo ku jira social media ku jira wixii iga buuxay baan ku shubay daas waay baan da'dii u tagta kontonka xataa ma jira u maraynaya waa moodi كنت مقولتها إن ويلكيجا أو ISIS هدان حتى أقشكيو يا شباب إن قرينايو هبطت هذه كتها سو تشارك إنه كتير علاقاتها سو أمريكا كوريسي سو من نقم كرا أمريكا مدعكم من نقم كرا ويلكيجا نو أنا ويلكيجا أقشكيو والله بالله تلا قفك وجهر يوجي أنا ونقناي أنا شيء جاي قرنت يدين شيء سو نفسي بابا كده عايه حبض وجهر يساب اللي فيسه سواء نفسي marka muxuu waa nafsi u galaya dalkaana na koriyay anaga wadankaana ay koriyay Ameerikaaniga ay korisay aniga Ameerika ay caawisay aniga Ameerika opportunity isiisay aniga Ameerika ay caawisay aniga Ameerika ay keentay wadankan aniga waxaan leeyahay God bless America haddaan necib tahay dhimo Ameerika haddaan Ameerika necib tahay dhimo ilmaheena wadankan ku koray ee shira dalkan jeclaa hadda ma ay jeclaa because waa kula joogaa kula mana joogo because markuu guriga joogo qol baa u xiran gabar haduu yahay wiil baa haduu yahay maxaa qolka ku qarsoon marka maxaa ka ogtaa qolka waxa ku jira bareenkiisa lagu dhaqaa bareen waash baa lagu dhigaa kuwa xataa wadaadada aad moodaysaan oo sukeen qarqarinayo masaajidka ku ordaya wax kale ay ku salaban yihiin markaas hadda hooyo walba ooyeysaa oo dhahaysaa wiilkaygii saas ma oranin wadankan gaalada nacay gaalada waxba kuma dhibinin I'm sorry
America I am sorry, Europe I am sorry. Waa u leeyahay because waxba inoo may dhimnin wayna qaawiyeen waxba inoo tareen laakiin Soomaali xuloo dayuus ah ee gabdhaha fuulaya ee wiilasha fuulaya ee dalka dhacaya ee adiga ku xumeynaya cunugaaga xumeynaya ee life-ka burburinaya kaasa ka dhex shaqeynaya. That's why badhameynaya maalin ba anaguna u ooynaa. That's why baynu gablanka u noqonay. That's why baynu ciilka la qabnaa. That's why baan qof ku caawinaya jirinin walaalka balaha hadii laga rifay xataa asxaan ku sameyn maayo. I need help. Ladies, isoo waca. Messengerkayga iga soo waca. Telefonkayga 612-987-6820 iga soo waca. Aynu noqono. Thank you. Thank you, I love you. Aynu noqono dad isku duuban. Aynu noqono balki hadii kale mid walba hameenka wiilkeeda laga baxo. Hameenka wiilkaaga la baxo. Hameenka wiilkaaga la dhaco. Hameenka wiilkaaga la xado. Ya, mid walba ha oydo. mid walba hameenkaas ha oydo. Doesn't work. Waa inaan hal cunug la wada oynaa. Waa inaan hal cunug la wada faraxnaa. waa inaan wax kasta oo inagu soo darsaba waa inaan is ognahay waa inaan iska warqabnaa waa inaan wadnahaan isku soo shaqeynaa waa inaan dhexda xiranaa waa inaan isku tashanaa xalay baa MS wiilasheedii gabadheedii social media la saaray oo Cabdi Xakiin oo $700 aniga taxiga la iga soo jara la siiyo oo ciyaalkayga soo saaray social media oo uu raba asagoo u shaqeeya ashabaab u shaqeeya asagoo daraagada gada asagoo gabdhaha gada asagoo gada because wax walba proof social media soo dhiga so waa mental ill so haduu sa mental ill ahayn ma qofba dambigiisi soo dhigan lahaa social media chatkiiba soo dhigan chat soo daraag ma America kama wanted kama ahan so muxuu sameynaya salfan ku gadaya wax allaala wixii la otarsan hadii caawa laptopka shirka la iga xado asaga loo geynaya uu gadaya gabdhaha yarka abu gadaya lacag buu soo haya ninkii lacagta lahaayay ninka madaxda markaas ku xiran yahay wariyaha ku caayay hadii kala wariyaha waxaas isi taajar buu haystaa soo ma iska celin karaan qaarna ayaga ah oo ku shaqaysanaya soo way salaamaya ilmahayga inaan u ooyo way qabataa ilmahayga inaan u naxo way qabataa ilmahayga inaan u gubto way qabataa naagaha bilaa damiirka ah wiilkoodii ninka